abaara 12 qadar daqiiqada ee galinkii hore maanta waxaa afaafka hore xarunta gobolka Mudug weerar gaari walqax qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray gaarigii gudoomiyaha gobolka Mudug Allah u naxariistay Axmed Muuse Nuur Yare oo qarxaas u dhintay waxaana la rumaysan yahay in la dhinteen qaar kamid ah ilaaladiisa iyo qof kamid ah ehelkiisa geerida gudoomiyaha waxaa saxaafaddu u xaqiijiyay taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug gaashaanle sare Muumin Cabdi Shire bismillahir rahmaanir rahiim meeshta waxa ka dhacay qarax lala eegtay gudoomiyihii gobolka Mudug maalin Rabadaana halka waxa ku dhintay dad oo kamid ah gudoomiyihii gobolka iyo 5 ruux oo kale oo 3 kamid ah yihiin howlwadanadii amniga isaga la socday waxa kale ku dhaawacmay 4 qof oo kale khasaaraha meesha ka dhacay intaas weeye waxa qarax wuxuu ahaa gaari noohaani watay oo nafti xalliga ah ba isku qarxiyay gudoomiyaha gobolka iyo gaariga la socday iyo tiimkiisa intaas kadib waxa shir degdeg ah isugu yimid wafdi isugu jira wasiiro saraakiil maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo oo shir jaraa'id ku qabtay halka uu qaraxa ka dhacay waxaan ugu horeyntii saxaafadda la hadlay wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Caada taasiban ka direynaa ilaahay ha u naxariisto waxaan uga tacsiyeenaynaa qoyskii waxaan uga tacsiyeenaynaa ehladii waxaan uga tacsiyeenaynaa dhammaan reer Puntland waxaan uga tacsiyeenaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed intii halka ku dhimatay oo gudoomiyuhu ugu horeeyay dawladda Puntland waxay halkan ka bilowday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug shaqo amni oo la rabo falalkii argagixiso ee muddada soo dhacayay ee sharwadayaasha argagixisada ee shabaab ay ka dambeeyeen ee dadka lagu leeynayay gobolkan in wax laga qabto kuwii horena in laga daba tago gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Mudug Xasan Cabdullaahi Warsamo Wardheer ayaa sidoo kale isna halkaasi hadal ka jeediyay gudoomiyaha gobolka Mudug iyo staafkiisa Allah u naxariisto samir iyo imaan dhamaanteen Allah inaga siiyo waxa uu runtii haliyay qaran oo gobolkan u soo adeegay isbedel amni oo bilow sameeyay qoliyaha kan waxa warsanaya isku daygoodii baqatinka ah waxaan ahaa ma ayna Allah u naxariisto marxuumka markii koowaad la isku dayo inta wuxuu adeegayay ummadda shacabka gobolka Mudug iyo dhammaan Puntland iyo Soomaaliya insha Allah samir iyo imaan Allah inaga siiyo 10 dambe bisha Ramadaan buu dhintay waxaana gabagabada shirka jaraa'id soo xiray duqa degmada Gaalkacyo Saahid Maxamuud Hussein waxaan u sheegaynaa ummadda reer Gaalkacyo inuu gudoomiyuhu dhuntay ee u soo dhiman shaqadii uu wadayna aysan halka ku joogsaneyn qolada argagixisadaana cidda ay bajanaysay iyo cidda ay isleedahay halka ku hakatan aan looga hakanayn Allah u naxariisto gudoomiyaha waa u tacsiyeenana dhammaan ummadda iyo degmada inta aan ku hadlay degmada iyo afka ummadaba Yusuf Maxamed Axmed telefishinka Universal magaalada Gaalkacyo